kulankan oo ah mid ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Qardho ayaa waxa uu ku saabsanaa barnaamijka aqoonta madaniga oo lagu talagalay in bulshada ay fahmaan waxyaabaha xaq loogu leeyahay sida ay ula shaqeynayaan dawladda iyo habka wanaagsan ee dimuqraadiyadda. Nuur Sharic Ismaan oo ka tirsan hay'adda Kaalo ayaa sheegay inay ka qabanayaan barnaamijkan magaalooyinka iyo tuulooyinka si bulshada loo gaarsiiyo barnaamijka aqoonta madaniga. barnaamijkan waxa uu ka dhici doonaa meelo badan, degmooyin badan buu ka dhici doonaa, gobollo badan buu ka dhacay ama gobollada oo waxa la yiraahdaa kabita caasimadaha gobolladu ka dhici doonaa, degmooyin ka dhici doonaa, tuulooyin baa ka dhici doonaa ilaahadankiis. marka waa barnaamij aad u ballaaran oo wacyi gelina, barnaamij wacyi gelina. ku-xigeenka madaxa barnaamijka aqoonta madaniga hay'adda Diakonia Cabdisamed Maxamed Cali ayaa ka hadlay waxyaabaha loogu talagalay mashruucani inuu qabto. Diakonia waxay fulinaysaa mashruucan dhammaan Puntland. waa mashruuc loogu talagalay dawlad wanaagga, dimuqraadiyadda iyo nabadeynta. forumkan oo ah kulanka dadweynaha waxaa looga hadli doonaa danaha ummadda kaga aadan muwaadinimadu, dawladnimadu, dimuqraadiyaddu iyo dawlad wanaagga. ugu dambeyntii duqa degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Hogaame Laaroor ayaa si rasmi ah u furay kulanka loogu hadlayo barnaamijka aqoonta madaniga. macnaha balaaran ummaddu u leeyahay waxa weeye waxa la isu keenayaa noocyadii kala duwanaa ee bulshada, odayaashii, dumarkii, aqoon-yahanadii, waxa weeye sifniga culimaa diinkii, nabadoonnadii, macnaha nooc kasta oo ka mid ah bulshada la isu keenayaa. waxaan la isdhaafsanayaa markaa araah iyo afkaar kala duwan oo aanay suurtagal noqoteen inay isugu yimaadaan haddaan la isu keenin. marka barnaamijkan wax badan buu xambaarsan yahay. waxyaabaha xambaarsan waxaa ka mid ah sidii loo heli lahaa wax la yidhahdo good governance ama dawlad wanaag. waxaa ka mid ah qofku xaqa uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahay. muwaadinku hadduu yahay Soomaali, xuquuqdee buu leeyahay. barnaamijkan ayaa waxaa fulinaya hay'adda Kaalo oo ka mid ah hay'adaha sida weyn ugu howlgala deegaanada Puntland, waxaana dhaqaalaha bixisay sida uu u soo marsiisay hay'adda Diakonia. waxaana la filayaa mashruucan inay ka faa'iideystaan inta badan dadka ku nool deegaanada Puntland oo si weyn ay wax ugu fahmaan barnaamijka aqoonta madaniga. Cabdiraxmaan Maxamed Cali, Somali Channel, Qardho.